Soo dhawaada asxaabteeda caashaqa kariimidan aan gacanta ku hayo waa kariimyada saameynta culus ku yeeshay wejigeena gaduudka noo sababay maqaarkeena koowaad naga dilay kariimyadan kale aan gacanta ku hayo waa kuwa wejigeena difaaca siinaya dhibaatada iyo kuwaas noo geysteena naga meeraya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا وأنعمنا وفضلنا مما خلقته. الحمد لله على كل حال. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذه السكناتي وفيديو كله قروح بدن وأندوني إن شاء الله تعالى إنا إذا لا شير قريو نسود دواذا هالكاد إيقا داونيسان أما أتنا قلس عتان وأركسم بيلا بيوتي جانل وولاشين oo uga barateen waxyaabaha dhanka skin care-ka ma sha Allah tabarakallah asxaabteeda igala socdo baraha bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa jira fiidiyoyaal hadda ayaantan aan sameynayay oo goos ah oo aan ugu talagalay asxaabteeda TikTok iyo dhanka igala socoto marka fiidiyoyaashaas qaar wax bay ka hadlayeen fiidiyoyaal qaar oo waxaan soo post gareeyay marka kariimyada qaar dermofetka iyo faiza cream iyo nuurta iyo shiisha ay ka mid yihiin in kariimyadaas ay wajigeena u fiicnayn sida aad ogtihiin ama aad la socotaan ama aad iga barateen hadeertaan dhowr kariimi inta waa uga soo hadlay oo kariimyadaas ka mid ah wajiga dhibaatada ay u geystaan iyo maadooyinka ku jiro dhibaatada iyo saameynta culus ay jirkeena u leeyihiin qaasatan wajigeena ay u leeyihiin waadna aragteen waana mid aan maantay su'aal iska weydiinaynin badankooda kariimadaas sida aan ka soo hadlay maadooyinka ku jira ajligeeda especially maadooyinkaas ku jira qiyaastii loogu talagalay ka badan ayaa la geliyay kuwa ayaga ka mid ah oo anagana aan zaa'id u isticmaalno sidaas darteed marka waxaa dhacdo in wajigeeni oo qoraxda aan u adkeysan karin kuleelkeeda inaan u adkeysan karin meel kulul oo dhan aan u adkeysan karin in maqaarkeeni kore u baxay sababtaas oo dhan waxaa iska leh kariimyadaas aan ka raadinaynay quruxda alxamdulillahi rabbil caalamiin marka ka aragsan ahaan walaashin ahaan maanta waxaa idin wadaa maasha Allah tabarakallah kariimyo aan isdhihi karo gabdhaha walaalaha ah qaasatan daafaha caalamka meel walba ay ka joogaan waa ay ka heli karaan inay aad maasha Allah tabarakallah naftiina aad u isticmaashaan oo aad wajigiina u isticmaashaan oo aan ku bedelataan maadaama rag iyo dumarba waa gacan isku hayn especially dumarkeena anagu waxaan ugu badan hooyanimada ayaa noo keenaysaa maadaama aan maasha Allah tabarakallah aan sameynayno inaan maxaa la dhihi jiray hooyo marka anaga waxaan ugu badan maadaama aan hooyanahay culeyska anaga ayuu nagu badan yahay ka dumar ahaan caruurta marka hooyada uurka ay yeelato borotiinka ay la qaybsanayaan hooyooyinka waxa ku imaada isbedel aad u fara badan ayaa ku imaada isbedel xagga wajiga ku imaada xagga jirka ku imaada xagga timaha ku imaada xagga indhaha ku imaada xagga ilkaha ku imaada waxaas oo dhan waxay tahay nafaqadii hooyadii oo gurmaysa oo lala qaybsanayo hooyada hadii afar cunug iyo kasii badan ay dhashay alxamdulillah ma sha Allah ayadu xataa maanta waxa ognahay oo aragnaa ama arkaa waxay tahay markii hadda hooyooyinka qaar oo wajiga haarta u ka yeesho oo kale toole waa dhif qof ayadoo xaamilo ahayn ama xilliga uurka ay sahaar yeelanin oo micnaha haarta si kale ay ku yeelatay laakiin badanaa boqolkiiba 85 walaalaha haarta wajigooda yeeshato waxaa sababta uurka markuu sababayo hooyada culeys ayaa saaran waxaa laga yaabaa inaysan wajigeedii iyo jirkeedii aysan keergareynaynin oo dharaygii iyo aysan ka ilaalinaynin liajli dalika marka iyo culeyska fitamiinaadka oo jirkeedii guraya sidaas darteed marka waxaa imaanaysa in wajigii asaga uu nafaqadiisa soo isku cunaayo kadib wajiga minus uu ku imaado stresska faraha badan haarta way keentaa marka maanta barnaamijkayga ugama hadlayo haarta maxaa keenay iyo haarta maxaan ku daweeyaa ama maxaa lagu daweeyaa aniga qaasan aragsan ahaan alxamdulillahi rabbil caalamiin haarto kale kariim waa u soo saaray aan gabdhaha walaalahayga ugu dabeeyay especially gabdhihii nooro isticmaali jiray waa idin soo saaray kariim maasha Allah tabarakallah aad idin anfacayo oo aad maasha Allah u isticmaali doontaan insha Allah taala inuu haarta maasha Allah tabarakallah idin kaga dhigo oo wajigiina ka bixiyo mideeda kale gabdhaha qaar waxay leeyihiin ama isku arkaan haarto kale toole marka ay yeeshaan oo lacala kariim uu ka bixiyo
way joojiyaan markay joojiyaan kadib haddana haartii way kusoo noqotaa ama sidii in kasii badan ayay ku noqotaa marka waxaan mar haddii ay kugu bilowdeen waa inaa uun la tacaashaa oo aa la dadaashaa laakiin inaa ka harto marnabo ma lahan marka insha allahu tacaala leesinimada iska dhaafa naftiina ka fakara haddaada adinka naftiina aada ka fakarina oo aada wejigiina iyo jirkiina aada ka taxadarin ma jirto cid idinkaga taxadarayso ma jirto cid kale oo idin ilaalinayso anagu haddaa dhanka cosmetiga ama beautygii aad ka saacideeno waxyaabihii aas dhihi karno wejiga way u fiican yihiin laakiin isticmaalkiisi adinka ayaa laydinka rabaa waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar kariimyadoo kale ama wixii u fiican waxa way soo gadanayaan haddana ma isticmaalayaan waxaas leesinimo way dhaaftay then hadhowta waxaa leedahay aniga wejigayga saanuu noqday kan waaye hadhow waxaa laga yaabaa dhowr sano kadib markay baasha kula tagto oo maqaarka koowaad intay ku gudubto kii kaleeta ay saameyn ku yeelato inaa hadhowti markaas haddana ay bixinteedii ay aad u adkaato waxa markii ay dhow yihiin ay fudud yihiin ay aad u fududahay ay u fiican tahay in maxaa la dhihi jiray la isticmaalo wixii ka hortagay qofka bini aadamka ahna laba shay ayaa u fiican ama dumarkeena inaan ku dhaqanno oo ah ka hortag ama ka dabatag labadaas ayaa insha Allah jeclahay inaa adeegsataan waa ima inaa ka hortag sameysaa oo ah haartii iyo nabrihii iyo wejigaadii aad 100% aad ka hortag la imaataa oo waxyaabihii beauty ku siinaya isticmaashaa waxyaabihii wejigaada moisturized ka dhigaya isticmaashaa waxyaabihii dry ka ilaalinaya isticmaashaa vitamin C-yadii iyo serum-yadii aa isticmaashaa waxyaabahaas oo dhan aa isticmaashaa si wejigaada mar walbeeto maasha Allah tabarakallah uu kugu ahaado ima hadda ka hortagaas aa la imaan weysid ka dabatag inaa la imaato markii wixii ay kugu dhacaan qadarkii ama haartii ay kugu soo baxdo ama nabar kugu imaado ama guduud kugu imaado maaha inaa isfiirisaa oo iska joogtaa waa inaa marka isla markii daawadoodii aad raadisaa oo aa la tacaashaa oo aad ku wadaa weliba maaha inaa ka joojisaa waa ina xataa haddii ay kaa baxdo wixii waa inaa u kala fogeysaa ugu yaraan xataa qofka aan waxba isticmaalin weekly 3 times waa inuu wax isticmaalaa wejigiisa uu ku qurxinayo jirkiisa uu ku qurxinayo sababtoo ah qof bini aadan dhanaa tahay hooyo ayaa tahay mas'uuliyad culus ayaa ku saaran naftaadina sidaas oo kale xaq ayay kugu leedahay oo mas'uuliyad ayaa ka saaran marka haddii aad dhahdo aniga waxba maxaa la dhihi jiray isma keer gareynayo waa jecelna inaan iskeer gareyno laakiin haddana waa inaa naftaadi waqti aa siisaa haddii adiga naftaada waqti casiisa aada ka taxadarin ma jirto cid kaaga taxadarayso marka insha allahu tacaala waxaa idin leeyahay mar walbeetoole naftiina caafimaadkiina ka taxadara maadooyinka qaar xataa hadda kariimyada aa idiin soo wado ku jiro waxay u fiican yihiin ayagoo oo supplement ah kaniini camal ah in la isticmaalo wax badan ay jirkeena faa'iido u leeyihiin kariimyada inaad garataan kuwii wejigiina maadaama da'sii noqonayno maadaama wadamo qurba la joogo maadaama meel adduunyada dhanba hadda wax fresh ah ma jiraan wixii dhan waxay iska noqdeen wax bacrimis ah iyo wax gacan ku sameyn ah xataa cuntada iyo fruitska aa cunaynay so you have to marka inaad naftaada aad markasteeta borotiinka iyo fitamiinaadka iyo waxyaabahaas oo dhan aad la dhinac istaagsanataan insha allahu tacaala aadna waxaan rajaynayaa inaad barnaamijyadeeda aad ka faa'iidaysataan dhammaanteen aan ka wada faa'iidno إن شاء الله وحيرنا حان دريما يا حنون يسو دعية أصحاب تيدا إن شاء الله إلهي خير فربنا يسيو دعاء مروا البيتولة وحيتها هاي لقم مارمان مروا البيتون وأباهنا هاي الحمد لله على كل حال مركا ما شاء الله يسو دوادا ما أنت مركا محي إذن ودا ولاشين عرق سنبلا هادا إذن تري فائزة كريمة استعمالنا نورها استعمالنا جانداني اسكي إلوة waxyaabo fara badan doorno haba sheegin maxaa marka aragsanay aan ku bedelanaa waaye afaraas aan joojisay marka insha Allah taala isoo dhawaada sida hadda caalamka anaga bas maaha inta isqurxiso caalamka dhan waa isqurxina waa la isqurxiyaa dumarka ku nool carab ha ahaadaan cadaan ha ahaadaan cajab ha ahaadaan afrikaan ha ahaadaan laakiin waxaa la isku kala dhaafay waxyaabaha nafta loo isticmaalayay especially anaga marka maadaama aan wadan maadaama qaaradan Afrika la joogo kale toole badanaa waxaa dhacdo inaan laga taxadarin waxyaabaha la isticmaalayo ama hal dhinac bas la fahmay in laga isticmaalo laakiin inkastoo anaga xataa inta aan joogno haddana saasay tahay waxaa heli karnaa waxyaabaha caalamku ay wejigooda u isticmaalaan ama ay ku nadiifiyaan ayaa heli karnaa oo ay
ما شاء الله تبارك الله ay wajigooda ku qurxiyaan marka anaga unba dhinacaas zaid markaas ku sii ahaan jirin marka insha Allah taala farasti maanta waxaan doonayaa creamkan inaan insha Allah taala idin la wadaago hal insha Allah u daawada meel walba horta Nairobi inta joogto waa ka heli kartaa isli hadaa joogtaan aniga walaashin aragsan bila ah waa idin haya waa idin keenay dhammaan meelaha cosmetic hadaa ku weysa xataa waa waxa magaalada meelaha qaar aan laga weyn karin ما شاء الله تبارك الله فرستي محاربة إن شاء الله تعالى إن إذا لو ذاقو كريم كان أدو جيدان كريم كان أدو جيدان وحرجينا إن شاء الله مقعيس إنا تسفي عن أدو أركي كرتان أدو إله إدمو واكاسا إن شاء الله تعالى واكاسا مقعيس هذا إلي سوء لويانا إن شاء الله تعالى كارتينا كجرتو مادة الهايو كريم كان وحوليها أسقو لوشن أنا وجرا أسقو كريم كفرين وجرا مرول بتوله لوشن كحكا وناكسن كريم كحكا وناكسن كريم كان مركا ما شاء الله واحتركي سائر روائنا عند لو ذاقو أم وحيابها ونفتينا وقولي هاي هرت لو مادو وآد جركينا في عن ayuu ka kooban yahay ama kamid ah maadooyinka ku jiro mid waa maadada aan wada naqaano oo collagen-ka ah collagen maanta waa garan karnaa ama waan fahansanahay xoogaa maadaama sinimyada qaar aan isticmaalno collagen ay ku jirto collagen maanta waa garan karnaa supplement ahaan ama ayadoo kaniini ahaan waa la isticmaalaa ayadoo powder ahaan ah waa la isticmaalaa lafahay u fiican tahay timahay u fiican tahay skin-ka u fiican tahay ma sha Allah tabarakallah laga ma sheekan karo maadadaas collagen-ka cream-kan marka ujeedaan waxa aan idinkugu soo idin tusay waxay tahay anagii oo isnadiifinayna isqurxinayna whitening helayno ina hadana jirkeena nafaqo siino waxaa jirto كريميها qaar ah wada ognahay in whitening bas ka helno xididada naga soo bixiyeen jirki wajiga gabdha qaar wajigooda kabacsana oo maxal dhihi jiray wajiga dhan oo ka hoolmay ayaga dhan alxamdulillah ala kulli xaal waxa ku dhacday waxa soo dhan keer gareen la'aanteena ma ahan waa dadaaleynay laakiin just the right thing oo wajigeena ama wax wanaagsan ma isticmaaleenin marka anagii waxa heli karnaa marka haduu ilaahay ku idmaayo in ayadii oo aan isticmaalayno wax wajigeena qurux noo siinayo hadana ما شاء الله هاد aan moisturizing ka helayno maadooyin jirkeena ama maqaarkeena ama skinkeena u fiicanna ما شاء الله تبارك الله ay noogu jiraan marka creamkan saaid u jeedaan idin tusay waaye waa kaasa jirka wuxuu siinayaa marka horta labadaas maado ka kooban yahay midna ay tahay collagen midda kale tan ay tahay hyaluronic acid marka saa u jeedaan creamkaneeto hyaluronic acid ayadana wajiga jirkeena wajigeena bas maaha sida collagen ko kale toole ay jirkeena ayadana faa'iido aad u fara badan ay leedahay creamkan marka wuxuu ka saacideynayaa lacala xataa haduu wajigaada dhaawac uu jiray soo gaaray mar hore toole mar hore ma aha laakiin mar dhow dhaawac adig soo gaaray haduu jiro dhaawacaas wundigaas uu soo wuxuu la ekay jirkii kale toole soo dhigayaa wajiga hadaad qaleelka aheed oo kale ama wajiga oo kaaga dhacay maxaa dhihi jiray biyaha wajiga haday dhamaadaan oo kale toole soo wajigii wuxuu siinayaa maxaa dhihi jiray hydration uu siinayaa haduu wajiga dehydration ka ahaa waa waxyaabaha faa'iidada u leh creamkaneeto ama kuwa asaga la mid ah hadda dhamaantood in wada tusay insha Allah ta'ala وإسكا أقدو يهين لكن هذا نساسة قف بجركيسة مد ويستعمالي أما مد أيا أنفعضي مركا سيدو كالتولي موسترايزد أيو سينايا قف كهدو دراي فيس لها دراي فيس waxa jirkiisa wuxuu yeelanayaa inuu nafaqo yeesho yeelanayaa inuu daraaygi ka tago yeelanayaa inuu smooth noqdo yeelanayaa whitening uu leeyahay sidoo kale creamyadan aan hadda idin tusaayo anti wrinkles way anti aging waaye waxay la dagaaltamayaan wajiga kadkadoodka iyo waxyaabaha uu yeesho kale toole way la dagaaltamayaan sidoo kale marka creamkan wuxuu asagana aad ugu fiican yahay gabdhaha inta ka soo baxay xididada sida cream u marsanayeen ama qafiifka ka noqdeen aad ay u saacideynaya oo creamkan xididadaas banaanka soo imaaday uu qarinaya jirka marka wuxuu yeelanayaa inuu difaac yeesho oo jirka maxaa la jira strong uu noqdo ayuu ka saacideynaya oo xididadaas qofka uu ka baabao whitening uu helo jirkina wuxuu u baahnaa oo isticmaalo kan waa halkaas creamkan haduu ilaahay idin idmo
إن شاء الله تعالى وحايد انتصايا أساقو كالاتو متك أكدو أساقنا إن شاء الله وكريم كان مقعيسة وحابل هابا أنتي إيشينا كوكوران إن شاء الله وحكب كفجنا يا ورقد واكسا أساقنا آدي وفي عيا إنتن عربية كوكوران أنتي إيشينا كوكوران كريم كان إنو هاي واكسا قديه السنة ما شاء الله تبارك الله سيفي عن وأركا إن شاء الله تعالى كريم كان وأجيدان قديه سائد تصايا هدو إلهي إدمو وايتو إيهاي سموث إيهاي كريم كان مركا أساقنا مادوين كهاد إدين شيغاي ودن way ku jiraan hyaluronic acid iyo anti iyo collagen way ku jiraan creamkan wuxuu asagana aad ugu fiican yahay 100% oo aad ugu fiican yahay ma sha Allah oo gabdhaha customerkayga ay ka soo mahad celiyeen oo ula shaqeeyay gabdhaha wajigooda gaduudka qabo marka ma sha Allah markasta way dhihi jirteen aragsan maxal dhihi jiray wax wajiga gaduudka iyo manoo keentay ma heesa sida xaqiiqda ay hore waa processka ku jiray laakiin ugu dambeyntii ma sha Allah tabaaraka Allah waa soo helay alxamdulillaah rabbil caalamiin waad u jeedaan insha Allah waa rajeenayaa magaciisa ina aragteen ma sha Allah tabaaraka Allah creamkan wuxuu ka saacideynaya marka soo creamyada ma aha inaad ku dhex isticmaasho hadaa mid isticmaasho mid kale uma baahnid waa sida hadda u isticmaali jirnay oo kala ka soo qaad nuurta iyo faa'iza iyo jaandanido kale qofka haduu jaandani iyo nuur isticmaalo faa'iza wax ma uga baahnaan jirin qofka haduu faa'iza isticmaalane kuwaas kale wax ma uga baahnaan jirin marka sidaas darteeda kuwaan oo kale creamyada hadda idin tusaayo qasab ma ahan qofka inuu wada isticmaalo ma aha qofka gaduud markuu qabo whitening uu rabo wajigiisana u soo noqdo uu rabo maqaarkii koreeto uu qofkii ka dhintay waa kana ma sha Allah tabaaraka Allah creamka bixinayo maqaarkaada hore ku soo celinayo nafaqo ku siinayo whitening aad ka helayso wrinkles-kana ka bixinayo jirkaada haduu dehydration noqdayna ka saacideynayo waa ku kana insha Allah waa idin keenay caalamka meel walba aad joogtaan ma sha Allah tabaaraka Allah waa ka heli kartaan I don't know isli in meelaha qaar laga helayo laakiin waa kaasa magaciisa insha Allah taala waan idin hayaa waan idin keenay insha Allah soo dhawaada creamkan wuxuu aad u saacideynayaa gabdhaha creamyada inta isticmaaleen ayaga aha inta isticmaaleen wajiga ka gaduutay ayuu ka saacideynayaa boqolkiiba 99 ما شاء الله تبارك الله أضو واحد كلته أضو كدر سنين أضو سيرم كلته أضو لا استعمالين واحد كلته أضو كسمينين أيو ساعدين يا جدود كان كابحنا يا وايتين إن أكلسا جرك هذا نفقة وسينا يا مقار كذا بنتين وسوعلنا يا كان أسجنا واكاسا إن شاء الله تعالى وحكوا سهر مركا كريم كان أو قبلها هذا تيك توك يقعد حركين أنا هايو oo leh faa'iza iyo dhankaas kan ku bedeshta waa ujeedaan kan meel badan xataa hadda kan isli waa laga heli karaa waa milk cream waaye waa whitening waaye cream ah day and night aan ku qoran habeen iyo maalin ina isticmaali karto waa kaasa yoko ما شاء الله تبارك الله before أنا مركا كريميada waxaa sameeyaa waa research ku sameeyaa waa google gareeyaa the best product asku daya inaan customer ku keeno si qofka customer-ka ah ama gabadha walaashay ah horta aniga nafteydii wax anfacaayo waa inaa keenaa sidoo kale qof walaalkay ahna wax anfacaayo waa inaa markaas ma sha Allah tabaaraka Allah oo زائد وساعدية مركا كريم كان أسجنا ما شاء الله وكاسا قفك استعمال جري وكلام فائزة جاندني وحكو بدلنا يا كريم كانوا كبدلنا يا وايتنين وليه هاي مكاغ باهنا تيوب إنا كدر ستي وحاس كلت كاون باهنا كريم يدان دع كل جودة هبين إيمالنا أكو قرن كان إن الاستعمال كرو كريم القار نايت بس أكو قرن إن الاستعمال كرو وايدين كل شيء جاي هدو إله إتمو كريم كان مركا عانو كسميسين هاي وحو ماش على آد وفي عيني هاي هذا أنا كم واستعماله حالي واستعماله هبين هرن واستعماله ما أنت سواحد فرصة وما هلو شقة سوء كلا مركا هبينكي وكلته مركا دو إله يقدره وكل قعدته وكلا استعماله ما شاء الله تبارك الله وحق دريمي أنا كود هوري موقتها واحد مركا كوجو عسبيين كلسوني أجرته واحد أكو قبته كريمي قار أو حاجر كلسوني أكو قبي أو استدهايو كاس عمل مركا وحاس لها سكرجي سو واحد أمو تروايا أمو وايتنين أمو حاس أو سكوجرين أو جست لي أنترين كلسكا يكتكدوت كي وحاس أنت بحيان ما دوين كان يكوجران جست وجهك أمو نفقسينا يا لكن ما شاء الله تبارك الله
sida aan ka dareemay labada habeen aan isticmaalayay aad iyo aad ma sha Allah wajigayga u soo dhaweeyay qofka haduu dry face yahay oo marka kan zaid u isticmaali karaa maadaama uu caano ka samaysan yahay qofka xataa uma baahna markaas inuu isticmaalo creamyadan kale la maxaa la dhihi jiray oo ama saliidaha oo kale toolo oo wajiga siinaayo oiliga ka dhigayo uma baahno because asaga loogu talagalay inuu moisturizer ku siiyo creamkan asagana wuxuu kamid yahay creamyada cusub hadda dukaanka ku soo saaidiyay inkastoo creamyada oo ku furay uu kamid yahay laakiin haddana creamyada aad u fara badan yihiin marka insha Allah waxa rajeynayaa inta ugu muhiimsan aan is dhihi karo ama inta aan is dhihi karo inaan ka gaaro insha Allah inaan idin tuso qofkii meel fog joogo kale screenshot uu ka qaadan karaa haduu ilaahay idmo creamyadan waxay aad bedel waa gabdhaha rabaa la hadlayaa inay Faiza iyo Jandani iyo Noor ama Pakistani cream ama waxyaabaha wajiga oo qasqaska la sameeyay inay iska dhaafaan oo rabaan creamyo wajigooda xididada ka qarinayo maxaa la dhihi jiray qurux siinayo whitening siinayo anti aging ah oo wrinkles ka bixinayo maadooyinka wajiga u wanaagsan ay ku jiraan gabdhihi rabo insha Allah taala creamyadan adinka la idin keenay adinkoon idin anfacaya haduu ilaahay idmo creamkan waa kaas u jeedaan insha Allah creamkan hadda asagana u jeedaan milky plus waaye dadka zaid darayga u sii ah oo fiican yahay asagana ma sha Allah tabarakallah waa creamyada gabdhaha rabo inay badashtaan nuur ay ku bedelanayaan insha Allah taala waa kuwaas si fiican u fiirsada creamy wajigiina ma sha Allah asagoo yogurt ka samaysan oo qofka xataa gaduudka haduu qabo asagana ka saacideynayo ayaa jiro waa haya insha Allah taala kan waa kaasa saas u yaala ما شاء الله تبارك الله كريميدان oo dhan kulgooda shaqadooda way iska dawdhowdahay kan saajeedaan sadar buuxo su'aalka dhanaal lahay anti spot ku qoran inuu yahay herbal cream naway creamkan waxa lagu talgalay gabdhaha ayagana wajiga nabraha ku leh inay isticmaalaan ma sha Allah tabaaraka Allah waa kaasa I think camera si kale taa u arkaysaan adinka rajeenaya inaad si fiican u aragtaan gudihiisa insha Allah idin tusi doonaa waa kaasa wajiga gabadhaas ku sawiran aad u fiican yahay gabdhaha ayagana wajiga nabraha ku qabo ma sha Allah tabaaraka Allah inay isticmaalaan oo insha Allah wuxuu ka baabi'inayaa nabraha wajigooda ayagoo damage u geysanin ayagoo wax gaduud ka gelinaya isticmaalin waa kaasa gudihiisana ma sha Allah tabaaraka Allah dhaladaas quruxda badan waaye waxa lahay untood ku deeqda aragooda ku deeqa untood ku deeqda ya ما شاء الله تبارك الله كريميدان oo dhan waxay kamid yihiin ani aragsan ahaan waa ogtihiin Faiza ama كريميدا باكستانيga ah waa gadi jiray ama waa gadaa لأجل ذلك أساس درتيدا ayaa waxa raba insha Allah كريميداas كريمية bedelkooda ka fiican sida gabdhaha walaalahayga hor ugu balan qaaday inaan keeno oo isticmaali karno wajigeena inaan ku qurxino ما شاء الله تبارك الله midkan kale asagana wuxuu kamid yahay ujeedaan whitening beard cream laha asagana aad wuxuu ugu fiican yahay ma sha Allah tabaaraka Allah wajigeena aad ugu fiican yahay asagana waa kaasa gadaashiisa xataa wax kasteeto oo faahfaahintiisa ah ayaa ku qoran gabdhaha marka raba inay wajigooda ayagoo whitening u rabo una qurux badnaado oo maqaarkooda uu iska dhimanin difaacooda uu soo noqdo ما شاء الله فإذا كان إيراب سكول دعجري أما نور أما جاندانيدا ما شاء الله تبارك الله كريميدا أنا حتى إمادين هورو أجري لك أنا كاستعمال جري فانتين أنا كحواي غيريا وهذا سومالي محمد مها حواي وحياة كلته وحي نفتين ونكسن بدنا من رادينو وكاس أساس ويالا أسجنا ما شاء الله تبارك الله وايتين نولي هاي زائد وما شاء الله برايت كوسينايا افتين كوسينايا كواس كلته بوا أمينة وأسكت عند الناس أو تجابيني مرك إن شاء الله وحار جينايا قبله حد قبل ugu xiran oo waxa jiro ani koo marka gabdhaha customer ku xasameynayay kuwi kaleeto oo hore ee ayaga rabeen oo kale iyo hal xaba kana isku gudaraay marka war ay ka keenayaan ayaga si tartiib ah next time marka ay imaadeen ma sha Allah tabaaraka Allah aragsan kii hadda ka hor aan saas isiinaysa aan rabaa kii kale oo aniga saas sameynaysa aan rabaa marka ma sha Allah tabaaraka Allah wax kasta waxay rabaan ina u kurgashid in aad fiiriso aniga ma fiiriyo
gabar hadday iisoo istaagto customerka ah idhaahdo waxaa rabaa cream u wanaagsan maya waxaa rabaa hebel cream hebel aa rabaa camal ay idhaahdo waa haya abaayo waa kanaa laakiin aniga waxaa sameeyaa badanaa waxaa jeclahay ama gabdhaha advice ahaan wixii ani markaas aa u arko maadaama wixii muddo ah ku dhex jiray research badan aa ku dhex jiray inaan sameeyo inta horan aan sameeyay ay jirto in marka wixii aas u arkay in wejigooda u fiican yahay ayaa kula taliyaa marka saas darteeda badanaa ma keeno maxaa suuqa ka socda iyo maxaa gabdhaha ay rabaan ma ku keeno laakiin ani waxaa u keena aragsanay gabdhaha walaalahaaga ah oo wejigaada kasoo bilaaw ilaa ayaga wejigooda maxaa u wanaagsan maxaa anfacaya maxaa wax u taraya aniga marka dukaankayga oo dhar oo gabdhaha ay leeyihiin oo ayaga hadalkooda ah dadka qaar waxaa lagu keenaa cream hebel ma heesaa may beri waa la keenaya ani saas ma aha suuqa marka ani aadayo ama alaab oo dhar gareysanayo ama la ii keenayo waxaa fiiriyaa research ku sameeyaa maxaa meel hebel wanaagsan kadib waxaa isku dayaa joyceka midkiisa ugu wanaagsan inaa qaato because gabdho badan asxaab badan hooyooyin badan walaalo badan ayaa igu xiran oo rajeynaya oo iga raba wejigooda inuu sidii hore kasii qurux badnaado ama dhibaato gaartay kasoo qaadoo kale gaduud ay qabeen haaray qabeen كريمة باكستان كودن waa la wada isticmaalo sida xaqiiqda ah dumarkeenna way wada isticmaalaan soo marka maadaama ma dhihi karo marka kaasa ku fiican isla asaga laftirkiisa wixii wajiga qofka ka damage gareeyo ahaa oo dhibaatada uga gaarsiiyay marka saas darteeda ah ayaa waxaa keenay oo door biday inaan sameeyo kariimyadaas kariimyo nooga quality fiican waxyaabo jirkeena u baahan yahay ay ku jiraan hadda labadan كريميدان لو ما دا ku qaadanaysin كريميداسna laba maada ku naceysaan maxay ahayd mid mercury ahayd midna hydroquinone inay ahayd oo maleena labada maado oo jirkeena aan u fiicneen oo كريميدا aa ogtihiin oo dhan aa wada isticmaalno oo wajiga ay ku jiraan كريميدان hadda aan tusaay maantana laba maada ku qaadanaysaan waadna ka aqrin kartaan gudahooda hadaa research ku sameeysan waa arki kartaan waxyaabo fara badan aad ka arki kartaan labada maado oo kuwan aan ku qaadanayno waxa waaye hyaluronic acid inay ku jirto iyo inay maxal dhihi jiray ku jirto maxal dhihi jiray collagen inay ku jiraan hadda fiiri siramyadan oo kale toole hadii ilaa ku idmaayo aad wajigeena ugu fiican yihiin siramyada insha Allah maalin gooni arag inaad ka hadlo laakiin maadaama ay kariimadan hyaluronic acid-ka ay qaarkood ku jireen waxa jiro ayagana waxay haystaan sidaas lamid ah siramye haystaan siramka marka wajiga in subaxdii lagu massage gareeyo oo ma sha Allah tabarakallah subaxdii wajiga ama habeenkii oo kale lagu massage gareeyo hadba qofka sidoo waqti u helaayo waxay sameynayaan jirkana waxa maadooyinkan oo kale ayagoo powder ahna waa la cabaa ayagoo kaniini ah waa la cabaa ayagoo siramye ah waa la marsadaa ayagoo cream ahna waa kuwa hadda idin keenay soo maadooyinkan oo dhan waa waxa jirkeena anfacaya oo nafaqada siinaya oo soo celinaya oo dib u soo kaabaya ma sha Allah tabarakallah isoo dhawaada marka asxaabteeda caashiqa waxa halkan u joogna waxay tahay inaan kala faa'iideysano inaan marka wanaag aan ku kala faa'iideysano haduu Ilaahay noo qadaro in aan mar kasta ku dadaalno maxaa lagu cadaadaa bas aan la fiirinin laakiin la fiiriyo waxaan aan ku cadaanayo jirkeyga wax ma siinaya nafaqa ah mase ma siinaayo muhiimadeena ugu weyn waa intaas marka maanta ma sha Allah tabarakallah video ku xarajeyna insha Allah hal cream inaan ku soo gabagabeeyo ma sha Allah tabarakallah Dr. Rachel وكمبينيغا ما wada taqaanaan had creamy kale taa ka haye creamyada qaar waxaan idin tusin waxay tahay macnaha maadaama oo meel marka qaar xataa gabdhaha hore oo arkay jiraan ama looga hadlay badanaa waxa rabaa waxa idinku cusub ama wixii kale ta inaan sheego Dr. Rachel company-ga si fiican aad taqaanaan argan oil waaye oo ka sameeysan yahay kan waa daygiisa kan waa night-kiisa marka midka oo maalintii waxa lagu talagalay jirka inuu moisturize siiyo inuu hydration kuugu sameeyo jirkaada inuu ku anfacaya lightening yarna uu leeyahay kan habeenkina lining-ka yarka iyo anti aging-ka inuu la dagaalamo ayuu ka saacideynaya waa la isku qaataa kan kuwa qaarna day and night-koodu way isku jiraan kuwa qaarna way kala baxsan yihiin hadda kuwaan oo kale marka way kala baxsan yihiin kan maalinta isticmaalaysa kan habeenkii kan shaqada maalintu qabsanaya kan shaqada habeenkii uu qabsanaya kan marka wajiga marka la isticmaalayo badanaa horta creamyadan oo loo isticmaalo oo day and night-ka ah oo maxaa la jira anti aging-ka ku jiro badanaa qoorta waa in la mariyo gacmaha waa inaa marsataa ilaana igu sii go'ay raal noqda insha Allah marka
gacmahana waa inaa marisaa because aging gacmaha sameynayaan wixii wejiga kasoo muuqanaya qoorta iyo gacmahana way kasoo muuqanayaan soo marka waxaa la rabaa inaa wejigaada iyo jirkaada aad ka taxadarto creamkan marka wejiga ku massage gareyso aa mariso wax yar saana ugu jugjukeynaysaa kan labadiisa xababa inuu saas wejiga maaha inaad dhabaxa iskaga siinaysid laakiin wax yar oo tartiib been ah ayaa saa ugu kubeynaysaa oo ku leedahay labada dhinacba waxay ka saacideynayaan inuu creamka uu wejiga dhex galo especially kan night creamka ah ayaa sidaas ku sameynaysaa marka maasha Allah tabaarakallah creamyadan aa idin sheegay waxaa rajeynayaa insha Allah inaad ka qaadataan screenshot kanoo kaleeto wuxuu zaaid u sii anfacayaa dadka dry skinka ah insha Allah kana rabi inaan kusoo gabagabeeyo laakiin sorry waxaan kusoo gabagabeynayaa because creamyada qaar badankooda hadda ay idin tusay waa wada moisturized iyo dry skinka qofka marka uu yahay laakiin aawo dadka wejigooda oilka ahaa marka idima hilmaamin insha Allah haddana idinkan waa idin tusayaa creamyada la idinkugu talagalay oo creamyada kaleeto aad uga maarmi kartaan halkan waxaan idinkugu hayaa insha Allah tacaala creamkan oo asagana loogu talagalay dadka oil face-ka ah maasha Allah tabaarakallah qofka hadduu oil face leeyahay kuwan iyo kuwa la mid ah xataa kuwa hadda ay idin tusaayay kuwada hore qaar ka mid ah isticmaali karaan ku jiraan kan especially wuxuu special u yahay dadka wejigooda raba inay maasha Allah whitening yarna helaan anti aging ay helaan then haddana maxaa la dhihi jiray waa kaasa saa u jeedaan creamka waa kaasa magaciisa xarjena أنا حلقة وأنا أنا هذا سفيع عن مركز سياسي سفيع عن وأركايا عمسانا الكوك قدينايا هاد بسدا جعشهين ما شاء الله تبارك الله آد وأنفعايا وجدا وحياة على فيرض قسم يسن وأكتين وجهك آد وفي عنتها سبيشال دتك هارا مركا قبان وجهك أويل ولي هاي هارها آد وأنفعايان كان واتقانين دكتور راشيل واي دي النايت واي كان سموثين وقسمينايا ما شاء الله تبارك الله 3 in 1 واي وحفر بدن وترايا ددك alavera waa kaasa dr Rachel waa asagana marka ayagaan ay kuwa lamid ahaa leedin haya dadka ma sha Allah wajigooda saliida leh ama oilka marka asxaabteeda caashiqa ii soo dhawaada si share gareeya walaalihiin kale u sii share gareeya wixii aad jeceshahaan ama aad jeceshihiin inaan ka soo hadlo hoos igu soo qora creamyada aan hadda idin tusaayay waxaan rajeynayaa inaanu ka kala faa'iideysanay insha Allah igraad noqdo hadii codkayga iyo ama insha Allah inkastoo hadda dukaanka aan joogo xilli dambana ay sii tahay oo aan rajeynayaa insha Allah inaan galbado waxaa damcay inaan videogaagan idinka dabageeyo sababtoo ah marka qaar marka guriga la tago ama waxyaabo kale lagu mashquulayaa waxaa sir marka asxaabtaada caashiq insha Allah intaada ka sii bixin insha Allah taala ka dabageey alaabta cusub ah keentay ama waxyaabaha wajigooda ayagoo oo ma sha Allah sameynaya nafaqana siinayo whitening ay ka heli karaan xididada indhaha ka bixin karo hadda meelahan xididada ka yeesheen gadgaduudka ka saari karo sorry publiga joogna buuqa iyo qaylada hada aragtaan oo qaat insha Allah taala waan rajeynayaa inuu codkayga idin soo gaaro marka sorry anaka inta waxa ka dhahnaa biki mooto marka ma sha Allah asxaabteeda caashiq daafaha caalamka meel walba ka joogtaan wixii comment ah insha Allah taala aad jeceshiin inaad igala hadashaan hoos igu soo qoro igu soo reeba barnaamijkii aad markaas u aragtaan ama aa u arko insha Allah inay gabdhuhu ama walaalahayga ay xiiseenayaan waa jeclahay insha Allah inaan juhdi geliyo inaan idila soo share gareeyo waxaan rajeynayaa insha Allah barnaamijkeenaas inaan ku kala faa'iideysanay creamyadaas aan ma sha Allah tabarakallah idin tusaayay caalamka meel walba aad joogtaan waa ka heli kartaan meelaha oo ma sha Allah cosmetic lagu gado waa ka heli kartaan Nairobi waa ka heli kartaan isla anaga budin joogno wajigiina waxa ku qurxin kartaan waxyaabo herbal ah oo dabiici guriga way jiraan laakiin waa ogtihiin anaga waxa u sii baahanaa xoogaa wax extra marka adigoo helaysid ayaa hadana ma sha Allah tabarakallah wajigaadii oo extra ku qurxinaysid ayaa
haddana waxyaabihii wejigaada damage-ka u geysan lahaa ayaa adoo iska joojinaysid ayaa wejigaada quruxsan kartaa kareemyada aad ku tusaa ku quruxsan kartaa waxyaabo kale oo aad ku sii hayaa ku quruxsan kartaa insha allahu tacaala haddaa wejigaada uu gaduud leeyahay insha allahu tacaala ila soo xiriir haddaa wejigaadu nabro leeyahay insha allah ila soo xiriir haddii wejigaadu gaduud aad ku aragto insha allah ila soo xiriir waxaan idinkula talinayaa waxay ay tahay badanaa faa'iza oo kaleeto leh ama kareemyadaas oo dhanka oo bakistaani ka xigo badanaa gaduudka ayay saa'idiyaan inaa wejigeena sida haddaan ka joojin karin xataa tartiib aan uga joojino haddaa wejigaada gaduud ku aragtidna totally in aad wada dhaafto ayagoo dhan oo aad iska dhaafto waa heli kartaa wax ka wanaagsan sidaa u aaminta unbaa u aaminaysaa inaa heli karto wax ka wanaagsan waana helaysaa insha allahu tacaala waana lagu hayaa waana ku tusay inta karaankayga ah marka insha allahu tacaala waxa aad ku aragto wejigaada inay gaduud ku sameynayaan ka jooji wejigaada ha u isticmaalin wejigaada qofka wejigiisa markuu gaduud leeyahay oo kaleetana ma haboono inuu isticmaalo liin dhanaanta ayadoo caadi ah ama ayadoo serum ah ama ayadoo face wash ah ama ayadoo scrub ah uma fiicno because qofka wejigiisa gaduudanaya aa arkaysaan waa already skinka kore qof uu dhintay marka liintana waxay rabtaa jir adag oo iska celiya oo iska difaaca liinta waxay samaysaa inay jirka difaac siiso marka haddii wejigaada uu maqaarka kore dhintay waxaa badanaysa damage-ka ay ku gaarsiinayso waxaa fiican marka waxyaabaha kaleeto oo qabow inaa u isticmaasho wejigaada hadduu ilaah kuu idmaayo soo dhawaada asxaabteeda caashaqa daafaa caalad meel walbo aad ka joogtaan waa walaashin aragsan bila beauty channel oo idin leh waqti wanaagsan meel walbo aad joogtaan kala faa'iidaysi wanaagsan commentigiina wuxuu yahay dhiirigelin daawashadiina waxay ay tahay dhiirigelin insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inaan kala faa'iidaysano halka ay ga daawanaysaan waa channelkiini waa channelkayga waa channelkeedii waa walaashin aragsan bila beauty channel waxaan idinka rajaynaynaa waa subscribe-ka waa share-ka waa like-ta insha Allah inaa Facebook-aada noogu sii share garayso wax walba toole insha Allah waxyaabaha qaar waxaa rajaynaa insha Allah mawduucyada qaar ayagoo ka kooban inaa si live ah u soo gali doono insha Allah YouTube-kayga ama barahayga bulshada qaybo ka mid ah oo aan rajaynayo si toos ah qofka su'aalaha inaa uga jawaabo hadduu ilaahay idmo marka barnaamijkeena maantay dhanka ku saabsanaa kareemyadaas idin tusayay kareemyada idin tusayay wejiga u wanaagsan gaduudka baabi'iya wejiga xididada ka baabi'iya haaraha kuma qorno inay baabi'inayaan laakiin way saacideynayaan whitening way ku siinayaan insha Allah tacaala kuwa haarahana u fiican kuwa gaduudka u fiican maadaama hadda keenay ama aan keenay ama aan idin tusiyay insha Allah kuwa haarahana processkay ku soo jiraan sidoo kale kuwa nabraha hadda mida idin ka tusiyay wixii kaleetana waa idin hayaa dukaanka way idin yaalaan insha Allah tacaala waa asxaabtada qaar ma sha Allah tabarakallah customerka ilaahay ha barakeeyo meel walba aad joogtaan gabdhihii ma sha Allah durbu way la fargaleen inay saabuun marista ay wajigooda ka dhaafaan in waxyaabaha saabuunta oo dhan ay wajigooda ka dhaafaan inay bilaabeen inay foam wajigooda ku dhaqdaan inay face wash wajigooda u isticmaaleen ma sha Allah tabarakallah dadka xataa wajigooda way iska dareemayaan ayaga laftirkooda khayr Allah idin siiyo sida uga faa'iideysateen iyo waxa jeclahay aniga qof walaalkay ah markuu ii imaado waxa aan siiyay ama waxa u sheegay in inta uu anfaco oo igu dhaho aragsanay khayr Allah ku siiyo wallahi saas ahaan jire saan marka taladaas keenta ama saas aad tiri waa ka faa'iideystay waxa dareemaa farxadan dareemaa waxa ii tahay dhiirgelin ii tahay waa ku mahadsantihiin inta ii duceysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ajri xasanaadka idinka siiyo inta barnaamijyadeeda ku xiran aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waa walaashin aragsan bila beauty channel insha Allah ta'ala barnaamijyo markasta ma soo gali karo liajli culaasyada ugu fara badan dartooda insha Allah ay cudur daara laakiin waa rajeynaya marba marka ka dambaysa insha Allah ta'ala inaan inta ka soo dadaalo oo aan wax walbeeto aad jeceshihiin oo ay codsateen idin keeno biidnillaahi kariim marka ii soo dhawaada insha Allah waxa idin rajeynaya khayr iyo caafimaad بوخاصة إنكم مع سلامة يا فانتين سكال متقانين ما أنت فرحات بدن إجماع موقتو عاجزة يا رد ريما يا إن شاء الله حوجا مضحنا آد ويحنونا يا إن شاء الله هذا وما سنتين يسوع هذا دافع عنك من الباقي جوكتان سين شير قرية إن شاء الله